shaqadu waa gundhiga raasumaalka waxa berito loo aayi doono. Waan ognahay kubadda cagta waa mihnad ku eg dhowr iyo 10 sannadood oo noloshaada ah, kaaga daran kuma sii jirto markii aad ku nooshahay Soomaaliya. Qof walba iyo qiyaarkiisa, dadka qaar ayaa sameeysta ama abuurta fursado kale oo aan ciyaar ahayn si ay iskugu maareeyaan markay kabaha ciyaaraha lalmiyaan, halka kuwa kalena qorshooda uusan ku jirin. Markaan waxaan diiradda saari doonaa qaar ka mid ah xirfadlayaasha ciyaaraha leh shaqooyinka kale ay bariiskooda ku dhacsadaan isla markaana isku maareeyaan. Kan uu ciyaaryahanka kooxda Horseed iyo xulka qaranka Soomaaliya Xasan Cabdinuur Geesi Xasaasi kaliya waxaad u taqaanaan ciyaarista kubadda cagta iyo markuu garoomada ku jiro. haddaba maxaa uu heliyay shaqada kubadda cagta? Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Anigoo ah Xasan Cabdinuur Geesi oo ku magac dheer Xasaasi oo ciyaar kooxda Horseed kubadda cagta. Marka laga soo tago waxaan ka shaqeystaa carruurana u jeedin quruxda badan oo lagu gado mobilada oo lagu gado wax elektaroonig ah. sidee iskugu keenaa shaqada uu noloshiisa ku maareeyo iyo ciyaarista kubadda cagta? Kubadda cagta waqtiga waxaan galaa 12 bar markaan ka soo baxo training wuxuu dhamaadaa 2 saac bar ama 3 saac markaan ka soo baxo traininga xaafadan aad waan soo quweystaa kadibna shaqadeeda imaadaan. goorma ayay ku dhalatay in uu bilaabo shaqadan uu imika hayo ciyaaryahan Xasaasi? Shaqadan waxaan ku soo biiray 2015 ayaan ku soo biiray. Imika wuxuu ku guda jiraa shaqadiisa nolol maalmeedka isagoo soo dhameynaya mid ka mid ah macaamiisha dukaanka uu ka shaqeynayo ciyaaryahan Xasaasi. Marka laga gadaa ay iPhone kaas qaba maxaa ku qasbay inuu shaqadan ka shaqeeyo Xasaasi isagoo inoo sheegay inuu ka cabir qaadanayo xidigaha caalamka kuwaasoo leh ganacsiyo horumaray? qof walba bini'aadan ah ciyaartooyda dulka way shaqeeyaan. anigana waxaan go'aansaday markaan kubadda cagta ka soo baxo inaan shaqo kale aan sii barto, waayo kubadda cagta waqtiga ku egtahay. anigana waxaan jeclaystay inaan shaqaysan karo, inaan isbaro, aan arko shaqadeeda meesha ay taagan tahay. qanaaska kooxda Horseed waa mid ku faraxsan shaqada uu hayo isagoo inoo sheegay in uu mustaqbalkiisa meel wanaagsan ka gaaro shaqada uu imika hayo. aadan ugu faraxsanahay waayo shaqo waa shaqada ugu fiican adartana aan isdii karo oo mustaqbalkayga ay tinkayga dambe ay dambayso. shaqadan aadan ugu faraxsanahay. kubadda cagta waa mid ku eg da'da, taasoo aan kala jeedo haddii qofku dhaafo 30 sano waa mid ka fariisanaya saaxada kubadda cagta. haddaba Xasaasi muxuu rajeynayaa marka uu ka fariisto dheelista kubadda cagta? wallaahi adartan kubadda cagta oo ciyaaraya shaqadeedina waa wadaa. marka kubadda cagta waqtiga ku egtay qof walba bini'aadan horta shaqadiisa waqtiga ku egtay. marka waxaan jeclahay shaqadan hadda wado inaan shaqo si fiican aan sii rajeynayo. ceeb maahan in la shaqaysto, balse waxaa ceeb ah shaxaad. xidigaha Soomaalida ayaa caadiyanba mihnada kubadda cagta ka dhigta midda ugu horeysa noloshooda, halka kuwa kale ay sameystaan shaqooyin kale iyagoo maankooda ku jira inay kubadda cagta ku egtahay da'da.